الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وولاشين جواهر حسين halkaad nagala socotaan waa channelkeena Jawaahir Xuseen inoo maamusho. Jawaahir Xuseen maanta maxay inoo haysaa wajigeeda hadalkeeda inta baa laga garanayaa. Jawaahir maanta waxay inoo haysaa arrin cajiib ah, arrintaas oo ka dhacday dalka Denmark ee magaalada Aarhus ee caasimadda labaad ee Denmark. runtii waa arrin aad loogu xumaado. kaliya waxaa dareemi kara hooyo damiir leh, aaba damiir leh, dad damiir leh, dad damiirkooda danqada kaliya dareemi karo. maanta waxaa hooyo gurigeeda ama maxayrada ka tagay farxadii ay haysatay. wiilkeedoo 25 jir ah ayay weysay. maxay ku weeday? dariiqay ku weeday? sidee ku weeday hooyadaas? maanta dalkeeda kumaysan weynin. waxay ku weeday dal qurbo ay qaxooti ku tahay ayay ku weeday hooyadaas. hooyadaas waxay inoogu baahan tahay maanta duco ayay inoogu baahan tahay. ilaahay subxaanahu wa tacaala qalbigeeda inuu u dhayo. maanta haddaan nahay dadka Soomaaliyeedna waa la dareemaynaa, waa la danqanaynaa, waa la xanuunsanaynaa. runtii waa wax aad loogu xumaado. runtii adigoo dalkaaga kasoo tagay oo ugu soo baqay cabsi ku nool dal shisheeye qaxooti ku ah, haddana wiilkaagii maxay radaa hala toogto, haddana meedkiisa halagu diido. runtii waa arrin aad u xun, waa arrin aad u xanuun badan, waa arrin maanta kaliya ka sheekeyn kara qofka damiir leh, qofka danqasho leh, qofka allah mustacaan dadnimo ku dambaysa kaliya ka sheekeyn karo. ilaahay subxaanahu wa tacaala dalkeena hanoo hagaajiyo. maanta hooyo walba way jeclaan laheed caruurteeda inay dalkeeda ku haysato. hooyo walba way jeclaan laheed yaa la socotaa, yaa la kulantay, yaa ka imaaday, yaa ku imaaday, yaa la hadashay in ay dhahdo caruurteeda way jeclaan laheed. laakiin waxay ku jirtaa gacan ka awood badan. waxaan joognaa ama ay ku nool yihiin inta badan caruurtooda ayaga u fooshay 9 bilood isug wadeen, haddana layska dhigay in lala dhalay lala waday 9 bilood isugooda. waa wax aad loogu xumaado. inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. abubakar waa wiil 25 jir ah, waa wiil yar, waa wiil dhalinyaro ah. runtii maanta waxaa toogtay gacan ka xaq daran. abubakar wuxuu ahaa wiilasha iska furfuran, wiilasha magaalada xoogaa magac ku leh, wiilasha magaalada Aarhus ee dalka Denmark caasimadda labaad. wuxuu ahaa wiil aad u furfuran, wuxuu ahaa wiil dhalinyaro, wiil dadka ay aad u jecel yihiin. wuxuu ahaa wiilasha iska ciyaalka xaafadda oo maasha Allah iska furfuran oo dabci ilaahay subxaanahu wa tacaala dabci wanaag u dhaliyay uu ahaa. wuxuu lahaa asxaab oo ajnabi ah, dadkan carabtan iyo bakistaantan iyo asxaab la ahaa. marka abubakar asxaabtii uu ahaa, marka allah mustacaan waxaa dhici karto mise allah mustacaan ayaga un inay shirqooleen. laakiin sida la sheegayo allah mustacaan habeen horaa lagu dilay dalka Denmark ee caasimadda labaad ee Aarhus in la dhahaya jeclaha ina saxsanaha rajaynaa insha allahu tacaala ayaa lagu dilay. waxa uu imaaday wiil saaxiibkiisa ah. wiilka saaxiibkiisa markuu u imaaday allah mustacaan wuxuu dhahay abubakar miya ahaa inakeen wax baan rabnaa meeshaan ka rabnaa. markuu soo wadayna wuxuu u keenay asxaabtiisa markuu u keenayna waxay isugu dareen midi iyo xabad ay isugu dareen. xaasidnimada mise cadowtinimada heerkaas la eg bal eega. waa dadkii lagu sheegayo muslimiinta, waa dadkii lagu sheegayo dad walaalaheena inay yihiin oo bakistaanta waa dad muslimiin inta badan oo maxay radaa ilaahay uu ku rooyahay carabta kadaliga sidoo kale. marka waa dadkaas bilaahi calaykum caruurtiina mar walba isku daya dadkay saaxiib la noqonayaan in aa u xadidaan. ma xadidi kartaan waan ogahay, laakiin in alla inta awoodaan ka dhaadhiciya in dhalinyarta maxay radaa si ajaanibka dalkaas markaas aa ku nooshihiin ma ahee dalka kale u dhashay hadday xunxun yihiin in ay isaga haraan, in aan ka waanisaan isku daya. maanta hooyadan abubakar hooyadiisa maanta kaliya waxaa dareemi kara qof damiir iyo danqasho leh kaliya dareemi karo, qof magac soomaalinimo ku weyntahay kaliya dareemi karo. runtii anagoo dhan hooyo macaanay waan kula xanuunsanaynaa, anagoo dhan dhibaatada dareemaysa waan kula dareemaynaa. ayadoo wiilkeeda maanta la dilay oon isbitaalka uu jiifo, haddana meedkiisa aysan arki karin. maxaa ka xanuun badan taa? wallahi wax ka xanuun badan ma jiro. maanta qofkii xanuunkaas dhex taagan mise qofkii qalbi leh mise qofkii damiir leh mise qofkii dadnimo leh kaliya dareemi kara xanuunka heerkaas la eg. qof walba ma dareemi karo. abubakar ha kaaga sii daran wuxuu ahaa wuxuu lahaa xaas uu ahaa
اللهم استعان حاس أيو ليه هاي ولي بمر وحرجينا إن أو آبا نقون دونا حاس كيسا سدح بلاد أفر بلاد أور أي لا هاي محير هذا أسي وحسوق لا إن مالنت آبا لا هاي يسوق لا wuxuu sugi lahaa in maalin oo noloshiisa kusoo biiri doonto ama gabar ama wiil wuxuu ilaahay ku irsaaqo aabana oo dhihi doono ama ay dhihi doonto balse macal asaf way ka qariyeen farxadii way ka hooyeen farxadii god ayay u horseedeen farxadii uu rajaynayay inuu adduunkan ku helo uu ku waayay laakiin waxaan rajaynaa inuu aakhiro uu ku helo farxadiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala xagiisa uu ku helo farxad ka wanaagsan farxadda adduunka boqol jibaarkeeda insha allahu tacaala maanta wuxuu inoogu baahan yahay inaan u duceyno inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala qabrigiisa u waasiciyo inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala su'aalaha u fududeeyo sakaraadka ilaahay waa u fududeeyo wuu dhaafiyey inuu su'aalaha ilaahay subxaanahu wa tacaala u fududeeyo ayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu baryaynaa hooyo macaantan waan dareemaynaa annagoo dhana ka danqanayna annagoo dhana kula dareemayna xanuunka aad dareemaysid maanta wiilkaaga ayaad weeday maanta haddana meedkiisa ayaa lagu ogolaan waayay inaad aragtid runtii hooyo xanuunkaas qof walba ma dareemi karo qof damiir leh kaliya dareemi karo hooyo macaanay waan kula dareemaynaa waana dareensannahay hooyo badan dhibaatadaas haysato inay Yurub ku nool yihiin adduunka daafihiisa ku nool yihiin hooyooyinka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan way dhiban yihiin waa hooyooyin dhiban waa idin la dareemaynaa hooyo macaane anaga hooyaan nahay adinka hooyaa tihiin oo maanta qof walba hooyo ah ma raba caruurtiisa inay dhib la kulmaan ma rabiyo maanta caruurtiisa meel xun inay ka baxaan ma rabiyo caruurtiisa si xun inay u dhintaan ma rabiyo caruurtiisa qof walba hooyo ah ma rabto in caruurteeda ay la saaxiibaan dad xun balse qadarkiyaa kugu dhacay qadarullaahi ma shaa facala kugu dhacday ilaahay subxaanahu wa tacaala xagiisa wax walba kaaga qornaatay anaga waxaan nahay insaan aan waxba qabsan karin wax walbana qadartay ku dhacaan marka wax walba alxamdulillah inaa dhahnaa waajib inoogu ah maanta way kugu adag tahay in aad qosashid mise in qof bili aadan aad la sheekaysatid mise in qof bili aadan aad waqti maxay radaa aad siisid aad kula hadashid waan jeclaan lahaa inaan kula soo xiriiro waan jeclaan lahaa inaan waqti kula qaato waan jeclaan lahaa inaan kula hadlo xanuunka kula qaybsado balse waan ka xumahay xanuunkaaga waan kula qaadanayaa hooyo macaanto xanuunkaaga waan kula dareemayaa xanuunkaaga garab ayaan kaaga taagannahay insha allahu tacaala waxaan rajaynaa Soomaalidu ku nool Denmark in ay wax ka qaban doonaan arintan wax badanna way hadalhaayaan insha allahu tacaala wax badanna way ka qaban doonaan arintan oo soo noqnoqota mar walba soo noqnoqoto oo wiil Soomaaliyeed la dilay wiil Soomaaliyeed la dilay wiil Soomaaliyeed la dilay kaliya ay taagan tahay mar walba oo waliba dadka ay dilayaan aysan ahayn dadka markaas wadanka ay ku nool yihiin ee u dhashay aysan ahayn oo ay noqdaan dadkan Pakistaanka Hindida waxyaabahan ay noqdaan isku daya dhalinyaro in aad ka hartaan dadkaas isku daya dhalinyaro in aad ka hartaan dadkaas isku daya in aad dadka wadanka u dhashay haday wanaagsan yihiin asxaab la noqotaan in dadka wadanka u dhashay dadka shaqaysta dadka muxtaramka ah dadka wanaagsan in asxaab la noqotaan runtii maanta waxa ahay Allah musta'an qurba ku noolahay qof dumara ahay alxamdulillah marka haddii aan dumar xun aan saaxiib la noqdo oo dadkan aan ku noolahay ay ku nool yihiin ama ajaanib ha ahaada ama dalka ha u dhashaan haddii aan saaxiib la noqdo in badan waxay isku dayayaan sidooda kale inaan noqdo haddii aan isku dayo inaan ka baxana dariiq walba waxay isku dayayaan inay ishirqoolaan naftana ay idhaafiyaan marka Soomaalidu waxay tiraahdaa banaankiisa marow maradiisa geed ma qabsato qofkii banaankiisa maro maradiisa geed ma qabsato marka mar walba ilmaheena dariiq walba ay ku soconayaan istilaabo walba ay qaadayaan insha Allah tacaala aan la socono maanta hooy walba waxay jeclaan lahayd caruurteeda qofkii la soco qofku la socdo qofkii oo la kulmay qofkii oo la sheekaystay qofku telefoon ka waco inay ogaato way jeclaan lahayd laakiin waan ka xumahay waxaan ku noolnahay bay'ad naga awood badan dad naga awood badan ayaan ku dhex noolnahay maanta dalkeena hadaa ku noolaan lahayn waa dhihi lahayn caruurteena xagee ka imaadeen xagee u socotaan yaa la soo kulanteen yaa ku imaaday yaad u tagtay waan dhihi lahayn oo awood aan ku dhahno Ilaahay subxaanahu wa tacaala wuuna siiyay oo waan leenahay marka mar walbana isku day caruurteena in asxaab la noqotaan si aysan u soo noqnoqonin waxyaabahan dhacay caruurta marka asxaab dhow aad la noqotid waxaa noqonaysaa qof qalbigiisa u dhow ama qalbigeeda u dhow noqonaysaa waxyaabo badan oo markaas uu ka qarin karin ma ka qarinayo wuu ku sheegaya marka insha Allah tacaala walaalkeena
أبو بكر إلهي سبحانه وتعالى ها ونحرسته إلهي قبر جيسها وواسعيه إلهي سبحانه وتعالى جنة الفردوس الأعلى ها أبو بشاريه إلهي سبحانه وتعالى معجيس جنة الفردوس الله كديجو إن شاء الله تعالى كان رسول كان عليه الصلاة والسلام إن حوتك لعبة إن شاء الله تعالى إلهي سبحانه وتعالى ها كديجو سكراتك إلهي هو أفضل سؤاش إلهي سبحانه وتعالى ها أفضل xaaskiisana waxaan leenahay abaay adigana waan kula dareemaynaa ilaahay subxaana watacaala garabku ah ubadkaaga ilaahay baa kula korinaya ilaahay subxaana watacaala si quman oo nadiif ahoo bashbash iyo barwaaqa ilaahay ha kugu kala keeno afar indhoodoo isjecel rabbi subxaana watacaala ha kaa dhigo waan kula dareemaynaa xanuunka aad dareemaysid qaaliye waan kula dareemaynaa familka abubakar dhan waan u tacsiyeynaa inaa lillahi wa inaa ilayhi raajicuun ilaahay subxaana watacaala قلبك ها إذن قبوجيو إلهي سبحانه وتعالى نيدينا ها إذن دجيو إلهي سبحانه وتعالى سامر إيمان الله سبحانه وتعالى ها إذن كسيو وها إذن لانا هاي أني وكو هادلاي أنت إيغو حيران مقعوضة إنا لله وإنا إليه راجعون وحانا رجينا إنا أسود عيسان ويلكاس إن شاء الله تعالى جنازة ديسن إنو إلهي أفضل ذي الله مستعان إن دادكاس كحق درن أو دلك جيستين إن شاء الله تعالى إنه فضي إلهي إن قعنت اللي قصوا بإذن الله الباري وأنا مع سنتين دمانتينا ويلكس ولالك أنا أدعينه وفملكي سأنا أدعينه إن شاء الله تعالى حاسكي سأنا أدعينه حاسكي سوا قف له وإلهي سبحانه وتعالى سن بضها كوكا لكيانه إلهي سبحانه وتعالى أفر إن دوضو اسجعل ربي سبحانه وتعالى هكذا إلهي ندلك أنا هنوها جاجيرونتي haddii dalkeena maanta uu nabad ahaan lahaa ma jiri lahayn hooyo Soomaaliyeed oo qurbahaas ku dhibaatoon lahayd hooyo Soomaaliyeed caruurteeda la baqi lahayd ma jiri lahayn wax walba waxa uu sabab ah dhibaatada dalkeena ka taagan waana rajaynayaa in Ilaahay subxaanahu wa ta'ala xal degdeg ah noo keeni doono biidnillaahi albaari وانا ما سنتين دمانتينا إن شاء الله تعالى أدعينا ولالكينا إنه إلهي قبره واسعيه آمين يا الله إله وأقبل دعاءنا آمين 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 وولاشين جواهر حسين وإذن له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.